saaka shirkan jaraa'id aan ku qabanayo hotel Saw magaalada Boorame waxaan jecelahay inaan codkayga ku beeriyo ama tala waxaan mooday aan ka iraahdo arrintan saami qaybsiga dadkii gobolku ku kala jabay ama xukuumadda iyo dadka gobolka aad moodo inay arrin weyn hadda dhex taalo laba qaybood ayaan ka hadlay qayb waxaan kula hadlayaa dhalinyarada reer Awdal qaybna waxaan kula hadlay xukuumadda insha Allah talooyin wixii ay aqoon yahan ahaan ila tahayna waan ka dhiiban hadii Ilaahay idmo hadii aan ku horeeyo xagga dhalinyarada waxaan jecelahay inaan waxoogaa ka warramo tadawirkii uu soo maray saami qaybsigan muddooyinkii u dambeeyay intaan anigu ka warqabo kulley intaan anigu ka warqabo waxa ka soo bilaamaysa markii geb lagu qabtay shirka reer Awdal ku qabsadeen iyo wixii ka dambeeyay waxa dhacay waqtigii uu kulmiye golihiisa dhexe ku qabsanayay shirka halkan Boorame ay madaxweynuhu uu martiqaad u fidiyay odayada dhaqanka iyo qaybo kamid ah aqoon-yahanka gobolka Awdal hotel Rays baa qada lagu sameeyay taqriiban dad u dhaxeeyay 60 ilaa 7 ilaa 80 qof baanu ahayn qayb baan ka ahaa markaa qadadii kadib waa la fadhiistay halka Rays baa la fadhiistay madaxweynuhu wuxuu soo qadimay in laga hadlo arrinka saami qaybsiga wuxuu noo sheegay in xukuumadii ay joogto Boorame sida u dhanayd cid maanta u maqan aanay jirin madaxweyne ku xigeenku uu fadhiyay kulankaasi Saylici wasiirada reer Awdal way fadhiyeen wuxuu badda soo dhigay madaxweynuhu in reer Awdal ka hadlaan saamiga maalintaas kulli qoladayda aqoon-yahanka ay odayada la socotay waxa la noogu dhaxdaray in markay wuxuu xisaab gaadho aanu halkaas soo dhex galno oo wixii taladayda aan ka dhiibano meel lagu shirayba suldaan baa kacay markii madaxweynuhu hadlay ee uu hadalka sheegay wuxuu madaxweyne martibaad ku tahay gobolka ama degmada hawlo kalena waad u socotay halkan lagu xagxagan maayo ballan baad noo qabanno waa laga daba iman laba oday baa uga dambeeyay hadalka waxay ayideen oo ku raaceen suldaankii u horeeyay hadalkii uu yiri madaxweynuhu mar labaad ayuu kacay wuxuu ku celiyay warsi la isku heli doonaba mooyi maantaanu dhannahay oo aanan kala maqnayno anigii madaxweyne ku xigeenkiiba aanu idin dhex fadhinaa waxba dib ha u dhiganina waxbana yaana idin dambeynina saamigii aad inta badan ka hadlayseen soo daayuu neeyay kullay anagu qoladii aqoon-yahankii waxaanu dhowray in aan hortiisa ku jaafa jirno laakiin odaydu waxay ku celiyeen in aan halkan lagu fureyn hadal oo xagga laga daba tagi doono anigu akhriyo wajiga madaxweynaha isagoo ka xun ayaa wuxuu yiri idinka soo qabsan ballan wana si dambe la isku arko waxay gardiid waa la diid khaladka waxaan leenahay banu qaadanaynaa wixii xukuumaddu leedahayna waa la saaraya hadii Ilaahay qadaro inta waxa ka dambeeyay wafti hogaaminaya madaxweyne ku xigeenku iyo gudoomiye ku xigeenka golaha baarlamaanka Axmed Yaasiin ayaa la soo diray waqtigii ay halkan jabhadaha Cawaale iyo jabhadii Wabar ay aad u ognaayeen say arinta wax uga qabtaan waxaad ka warhaysaan in ay kulamo qabteen madaxda dhaqanka la kulmeen waftigaasi wasiirada gobolkuna waa ku jireen odayada dhaqanka ganacsatada nimanka maxaa ku leedahay aqoon-yahanka haweenka iyo dhalinyarada intaba si goonigooniye ula kulmeen maalintaasna waxa aan nasiib ka qaybaha aqoon-yahankii la kulmay ugu yaraan 100 qof waanu hayn maalintaas xarunta madaxtooyada ee Boorame ku taal ayaanu fadhiisanay 3 qodob ay noo soo jeediyeen waftigaasi kow in amniga gobolka gacmaha la isku qabsato laga wada shaqeeyo laba in horumarka gobolka si kasta oo siyaasadda loogu kala aragti duwan yahay waxa weeye iyadana laga wada shaqeeyo iyo qodobka saddexaad oo ahaa waxayna weydiiyeen codsi ahaa waxa laga yaabaa golayaashan ka tirsanahay dhawaan in arrinkii saami qaybsiga la soo bandhigo oo ka hadlalana yiraahdo aqoon-yahankii gobolkana dadkeenana waa cabanayaan maxaad nagu kordhinaysaa bayna weydiiyeen wixii ay nala ahayd rag badan baa hadlay
wixii ay nala ahayd halkaasaan ku hoorinay annagu haddaan aqoon-yahankiinahay suuqa kaamaanaa jafajirqine waxaan isleenahay halkay ku habboonayd ayaad arrinkay dhigteen iyagaa la shaqo tegey hadduu yahay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka iyo wasiiradii reer awdal iyagaa arrinkaa naga qaaday oo la shaqo tegey halkii uu ku dambeeyeyna kulle iyagaa ka jawaabi doona intaa waxaa ka dambeeyey shir ayay qabteen 3 xisbi lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka madaxweyne ku-xigeenka ka qayb ahaa isagoo xisbiga kulmiye matalayay de mas'uulkii ugu sareeyay in halkan fariintaydii ka farayna uu ahaa kullay waxba ka hor yimid waxa uu ula qaatay in saamigiina dib loo dhigo doorashadiina la galo ayaa ka hor yimid isaga inoo sharaxi doona laakiin madaxweyne ku-xigeenka wax ka maqnaa muu jirin uu hayay taladayada uu hayay waxa ugu dambeyn waxa la marti qaaday odayadeennii waxaan filaynay intaanay madaxweynaha hortagin inay halkan ku kulmaan arrinta rogaan waxa ay ka hadlayaan iyo cidda ka hadlaysa halkan isla meel dhigaan aqoon-yahanka iyo siyaasiga jooga gobolka u yeedhaan maxaad nagu biirinaysaan yidhaahdaan talo hareeraha laga joogo ay la tagaan baan filaynay waxaan ku baaraaragnayuun madaxweynaha hortiisa la isku diiday ayuumaanu kolley dee maqalka iyagii ugu horreeyay halkaasu ka bilaamayay marka dhallinyarada reer awdal waxaan leeyahay dad qaybsan waa lagu kala qaybsamay halkaa taa u dambaysay salaadiintu way kala qaybsameen madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo wasiirada inoogu jira reer awdal haddaan nahay xukuumadda ku jira waxay qabaan in doorashadii la galo idinka dhallinyarada ah iyo dad kale oo idinla soo qayb salaadiinta ka mida iyo xubnihii baarlamankuna waxaad qabtaan in aan doorasho la gelin saamiga wax laga qabta mooyaan waxa weeye haddaynaan dheeldheelayn taladaada waxaad hubtaa marka dadku hareeraha ka joogaan inay halkeedii qabsanayso way dhicisoobaysaa waxaan markaa tale ku soo jeedinayaa arrimaha labaanu kala qaadaynaa waa wax qalinka madaxweynaha ku qoran kelmad baana ka odhan waxna waa wax khuseeya doorashooyinka iyo golayaasha sharci dejinta markaan aqoon-yahan ahaan annagu rogrognay golayaasha sharci dejinta sida baarlamaanka iyo guurtida sida keliya ee reer awdal wax ku helayaan waa sansas la qaado ama tirakoob waxa la yidhaha oo la galo sideen wax ugu helaynaa gobolkan nin aan aqoon u lahayn iyo nin isyeelyeelaya marka laga tago waa gobolka populationka ugu badan leh weeye Soomaaliland maroodi jeex baa la sheegaa ma qabo anigu ama way beenoobi ama way ruboobi gobolkan waxa la isweydiinayaa yaa leh bulshooyinka leh waa la yaqaanaa hadday isku habar wacdaan xilliga sansaska oy si wanaagsan isku diiwaangeliyaan number 2 bay noqonayaan number 2 ayay noqonayaan wax allaale iyo wixii kale hadii qabiil wax lagu qaybsado iyo hadii gobol wax lagu qaybiyo iyo hadii sidii 60kii lagu qaybiyo midna gobolkan ma anfacayso markay golayaasha sharci dejinta noqdaan 2 xubnood ugu badnaan 3 xubnood baa waxa kale ku kordhi laakiin markay tiro noqoto number 2 buu noqonayaa gobolkan hadday si wanaagsan la isku abaabuli waayana number 2 buu noqonayaa oo aan tiri lahayn laakiin dhalinyarada waxaan leeyahay waa inaad u istaagtaan oo u diyaar garowdaan sida aad uga shaqayn lahaydeen gobolkani inuu dadkiisu isdiiwaangeliyo meel kasta oo uu joogo oo aad number 1 ka dhigtaan si xaq aad leedihiin dhan kasta uu noqdaba banaanka aad meel u saartaan taa intaasaan dhalinyarta leeyahay ha ku wareerinaan leeyahay imika waa idinkiibaa kala jabsan wuu idinka dhicisoobayaa goor la midaysan yahay oo meel loo wada joogo ayaa arrintaa wax laga qabanaya taas waa qodob xagga madaxweyne maxaad adigu ka tanaasulaysaa malle adigu maxaad ka tanaasulaysaa haddii aad codsatay in doorashooyinkii la galo saamigiina tirakoobaad ku xidhay xukuumaddaada iyo dhaqaalaha la helaa laaxin baa ku jira mudane madaxweyne laaxin ayaa ku jira laaxinkaasi uma baahna arrin kalena uma baahna tirakoobna uma baahna adna waad og tahay
inta arrimaha u faradhuudhubana siyaasiyiinta aad caqligooga u shaqaynayaan way ogyihiin mudane madaxweyne adigu maxaad ka tanaasulaysaa baan ku leehay arrinka ay ka hadlayaan dhallinyaradu horta yaan la qalloocinin markay leeyihin wasiirada ha lanoo kordhiyo markay leeyihiin agaasimayaasha guud ha lanoo kordhiyo markay leeyihiin safiirada wax lanaga siiyo markay leeyihiin dhaqaalaha waddanka si wanaagsan ha loo qaybiyo markay leeyihiin qabiil waxuma rabaan laba tusaalaan soo qaadanaya haddaan soo qaato arrinka wasiirada dee wasiirku reer uma shaqo tago gobolla uma shaqo tago tuugna maaha dadku dirsanayo oo la leeyahay xoolaha dadweynaha noo soo xad hadduu u bato wasiirka oo istaqaanaan waxaa laga yaabaa inuu siyaasadda dawladda kula socodsiiyo uu ku yar abdheed gareeyaa laga yaabaa maxay u jeedaan markaa waxay ku leeyihiin mudane madaxweyne horumarka dalkan xaq baanu leenahay sida gobollada kale si aanu qayb uga noqonno oon horumarka dalka uga qayb qaadanno xukuumaddaada naga qaybgeli oo halka laaxinku kaga jiro ka saar bay ku leeyihin yaan loo leexin qabiil iyo arrimo kale dhallinyarada yaan la aftuubin qodobka labaad dhaqaalaha haddaan soo qaato matalan sanduuqa SDF haddaan soo qaato haddii 60 milyan lagu shubay 5 sano u dambeeyey maxay filayaan dhallinyaratan gobolka haddii gobol wax lagu qaybiyo 6 gobol loo qaybiyo 10 milyan bay filayeen haddii sidii 60kii lagu qaybiyana boqolkiiba 25 bay filayeen 15 milyan bay filayeen maxay ku filayaan lacagtan ay sheegayaan ma intay tukaan dhigtaan ayay masaariif ka dhiganayaan kama dhiganayaan dadka reer Soomaaliland baan u sheegaya dhallinyaradani waxay ka hadlayaan war hal la balance gareeyo oo goboladu si aanay u kala tagin wixii dhaqaale aan helo hal la isku miisaamay leeyahay matalan haddii gobolkan wax laga qabto kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka eeriboodiyada dekadaha yaa ka faa'iideysanaya sidaynu maanta uga wada faa'iideysano berbera ama garoonka Hargeysa ayay reer Soomaaliland iyo ummadaha kale jaarkay nalaayhiba sida Djibouti iyo Ethiopia ayay uga faa'iideysan doonaan iyo dhaqaaluhu ka soo galaya iyo cashuur ka qaadi doona reer awdalba ka qaadi doona dawladda ka qaadi doonta haddii ay noqoto ilaha dhaqaalaha in la irmaaneeyo yay faa'iido ugu tahay ceel batrool haddii la soo saaro maanta ma reer awdalba ka faa'iideysanaya reer Soomaaliland ba ka faa'iideysanaya maxay uga jeedaan marka waxay leeyihiin siday reer Hargeysa oran lahaayeen ama reer Maroodi Jeex oran lahaayeen mudan madaxweyne dhaqaalaha sida loo qaybiyo dalka dib ugu noqo 5 sano u dambeeyay haddii kaaga muuqato qalqalooc kaaga muuqatana ballan qaad oo ka dhabee oo fuli oo toosi wax laga cabanayo haddii reer awdal sudbursi ay haystaana dawladdaadu ha ka jawaabto oo ha sheegto wixii dhaqaale soo galay sanad walba 5 sano u dambeeyay sidii loo qaybiyay iyo siday sudbursi u haystaan dawladdaadu ha ka jawaabto haddaanay ka jawaabayn fadlan waxa weeyi dhallinyaradu iyagu waxay masaariftaan ma rabaane waddanka la gelinayaa dhaqaalaha waddanka ka soo baxaana waddanka oo dhan buu anfacayaa iyadana yaa la qalloocin baan leh taana halkaas kaga tagaya nimanka wasiirada ah ee reer awdal ee Hargeysa fadhiya su'aal baan weydiinaya waad arkaysaan sida u qalayaan dadkiini dhallinyaradii xamaasadda inay emotional yihiin shucuurtoodu kacsan tahay ma waxaad sugaysaan inta isfarasaarayaan dhallinyarada iyo dawladdu ma markaas aad talinaysaan maxaad ugu dhuumanaysaan Hargeysa idinka dadkan u maqan dawladdii haddaad la qaadateen xukuumaddii in la galo doorashadii soo dhex fadhiista dhallinyaradiina miyay idin dilayaan kaalay qanciya la dooda sida dantu ku jirto way ku khasban yihiin kaalay u sheegay oo soo dhex fadhiista